underground weli la islama gaarin marka aniga waxaa fikirkeyga ee tahay oo aan soo jeedi lahaa marka hore wixii oogada sare in laga faa'iideysto oo la maalgeliyo oo xoogga la saaro kadib marka intaas la sameeyo haddii lacala nugu yaraato markaas in la gaaro wixii shidaal qodisi barnaamijka ee underground dhulkuus wixii ku jira la soo bixisteeda marka awoodda dawladda dhexe iskugu imaato oo maamul goboleedyada iyo waxa dhan dawladda dhexe hoos imaan karto ee maamuli karto markaas in loo gudbo wixii shidaal qodisi wixii kale in la gaaro caqabadooyin jiro oo ka hor imaan kara in shidaalka la qodo sababtoo ah waddanka hadda ma midaysna qaabkii wax loo wada qaybsan lahaana hadda wax la isla meel dhigo la isku ogyahay oo lagu heshiiyana ma jirto heshiisiin saxna ma jirto waddankii qabaa'ilo iyo waxyaalo fara badan ay ka jiro hadda la isku haysto marka intii dib u heshiisiin iyo waddanka laga midey lahaa waxaa dhici karto weli shidaal qodistii waxay u baahan tahay dhuuti waxaa imaanaysa percentageski wax lagu qaybsan lahaa in la iskugu qabsado oo meeshaas khilaafaad iyo kala tag iyo muran inuu imaado welina iyadoo weliba maamul goboleedka gobolka banaadir maqaamkiisa iyadoo la sameyn waa caqabad kaloo meeshii taagan waa dhawaa walaal bismillaah raxiim haddii oo codkayga aan ka dhiibto barnaamijka shidaal qodista ani ahaan waxaan ka leeyahay oo fikraddeeda ay tahay hadda looma baahna lamana gaarin xilligii shidaalka lala soo bixi lahaa sababtoo ah waddanka horta koodii wuxuu u baahan yahay waxyaalaha oogada sare oo saaran ayaa weli isleeyahay soomaaliya ku filan markii si nidaama oo loogu faa'iidaysto oo la maalgeliyo tusaale ahaan beeraha iyo waxyaalaha badda ee soo saarto iyo xoolaha iyo ganacsiga in la hormariyo oo siiba la maalgeliyo dadka beeraleyda iyo xoololeyda la maalgeliyo aa loo baahanyaa markii wixii oogada sare la maalgeliyo soomaaliya waxaa aaminsanaha boqolkiiba boqol inay ku filan tahay wax oogada sare saaran underground weli la islama gaarin marka aniga waxaa fikirkeyga ee tahay oo aan soo jeedi lahaa marka hore wixii oogada sare in laga faa'iideysto oo la maalgeliyo oo xoogga la saaro kadib marka intaas la sameeyo haddii lacala nugu yaraato markaas in la gaaro wixii shidaal qodisi barnaamijka ee underground dhulkuus wixii ku jira la soo bixisteeda markaas in loo gudbo taas aniga tala aan soo jeedi lahaa barnaamijkaasna wuxuu u baahan yahay in kooga hore waddanka guud ahaan la wada nawadeeyo oo la mideeyo awooddiina iskugu imaato dawladda dhexe markay awoodda dawladda dhexe iskugu imaato oo maamul goboleedyada iyo waxa dhan dawladda dhexe hoos imaan karto ee maamuli karto markaas in loo gudbo wixii shidaal qodisi wixii kale in la gaaro marka hadda waxaan ku baraarujin lahaa oo codkayga aan ku adkeen lahaa oo ku ta'kiidi lahaa marka hore wixii oogada sare saaran in la maalgeliyo oo xoogga la saaro waxaana aaminsanahay soomaaliya oo dhan inay intaas ku filan tahay fikirkeyga intaasaa ku darsan lahaa marka maxaa caqabad ka hortaagana is leedahay caqabadooyin ma jiraan marka hore waa jiraan caqabadooyin jiro oo ka hor imaan kara in shidaalka la qodo sababtoo ah waddanka hadda ma midaysna qaabkii wax loo wada qaybsan lahaana hadda wax la isla meel dhigo la isku ogyahay oo lagu heshiiyana ma jirto heshiisiin saxna ma jirto waddankii qabaa'ilo iyo waxyaalo fara badan ay ka jiro hadda la isku haysto marka intii dib u heshiisiin iyo waddanka laga midey lahaa awooddana dawladda dhexe iskugu tegi lahayd wixii oogada sare in laga faa'iidaysto oo la maalgeliyo siiba xoolo dhaqatada iyo beeraleyda iyo dadka kalluumaysiga in la maalgeliyo oo meeshaas aad iyo aad loogu faa'iidaysto intaasaa dhihi lahaa insha allah soomaaliya haddii maanta shidaal loo qodo la dhaho meesha dhaqaalaha imaanayo isku dhacii wixiina waa ka baxayaan meesha marka awal soomaali ceel biyooda isku diri jireen oo dagaal iyo qabiil isku diri jireen maanta shidaal la qodo oo kharash imaado lacag imaado maxaa dhici kara marka leeyahay soomaali waxaa dhici karto weli shidaal qodistii waxay u baahan tahay dhuuti waxaa imaanaysa percentageski wax lagu qaybsan lahaa in la iskugu qabsado oo meeshaas khilaafaad iyo kala tag iyo muran inuu imaado welina iyadoo weliba maamul goboleedka gobolka banaadir maqaamkiisa iyadoo la sameyn waa caqabad kaloo meeshii taagan hadda maamul goboleedyada waxaa lagu tiirsan yahay wixii ka soo baxo gobolka banaadir in la wada qaybsado marka waxaa aniga ila tahay maamul goboleed walba waxay inay isku xirato hadda arrinta iyo sida waxay u socoto waxay tahay maamul goboleedyada badanaa waxay ku dhaqmaan keena lii kaagana kula lii marka meesha waxaa ka baxday maqaamka gobolka banaadir wixii xuquuqdiisa iyo xaqiisa ahaa meesha way ka baxday wax xaqna ma lahan marka waxaan dhihi lahaa in la hormariyo maqaamka arrimihiisa iyo wixiisa iyo qaabkii wax loo kala qaybsan lahaa iyo wixii soo bixi doono kheyraadka inta laga gaarayo in intaas kale laga hormarsiiyo oo wixii oogada sare xoog oo dawladda ay saarto intaasaan ta'kiidi lahaa oo ku adkeenaya marka wixii hore faa'iidooyinkii nafcaantii la heli jiray deeqii beesha caalamka laga heli jiray oo kaleente 4.5 lagu qaybsan jiray waxaasoo kale wax kama dubna leedahay wax kama dubna haa weli hadda weli wax lagu heshiiyo sax markii la qodo shidaalkii wixii qaabkii loo kala qaybsan lahaa oo loo kala gudbin lahaa weli ma jirto gobolka banaadir maqaamkiisa saxda iyo maamulkiisu hadda oo sax oo la isku ogyahay oo xaqiisa wixii uu dhici lahaana weli ma samaysna marka ani waxaan dhihi lahaa inaan lagu degdegin barnaamijkaas dawladdana xoogga ee saarto
waxyaalaha oogada sare in laga faa'iideysto oo la maalgeliyo oo hadda muuqdo sida beeraleyda oo kale waddanka kheyraadkiisa waayada hore wuxuu ku tiirsanaa jiray beeraleyda xoola dhaqatada ee kalluumaysatada ku tiirsanaa jiray gaabaa jiro marka gaabkaas in laga bixiyo oo dawladda dhankaas maalgelinta ee saarto ee culayska ee saarto kadib hadday ku filnaaweyso markaas kadib wixii hoos jiro in laga faa'iideysto taas aniga fikirkayga ee tahay ana ta'kiidina